Somaliland oo kale xilli xagaaga aeroboorka jaamka ka jira waa yaabaysa hal family oo banaanka dadka kulligood waxay imaanayaan Hargeysa iyo Boorame iyo Gabiley bay imaanayaan bulshada reer Somaliland maxaa sababay nin baa igu yiri waxa sabab u ah awalba dadkaan markii hore dadkaan reer Somaliland markay qacayeen waxay ka qaxeen Hargeysa oo dhisan lan Hargeysa waxay ahayd caasimadii labaad marka way garanayaan xiriir bay la lahaayeen baalkay balaan laakiin dadkaan reer Puntland intooda ugu badan waxay ka qaxeen koonfur Muqdisho ay deganaayeen kaasay deganaayeen dhukaan dadka deganaa inta awalba deganayd waa joogtaa dadka dabadaha aynu tabaynaa waa dadkii reer Puntland awalba ka qaxay koonfur Kismaayo Muqdisho Baydhabo dhulka deganaa way marka dhulka kan wali xiriir connection lama leh marka waxaanu baahnaa connection abuuro markaad aragto oo tagto Hargeysa kale dadkeedu waa buuxaan umad oo dhan way joogtaa inagu waxa u deganaa sidii taas ay ugu dambeysay Raali oo Cabdijabaalo inagu waxa u deganaa sidii miyigi afartamaadkii sodomeeyadii ba hadda inagu deganaa dadku magaalooyinka caasimadaha la dhistay magaalooyinka waaweyn baa la degay inagu waxaan degnay sida hadda raaga sheegay reer walba waxay dhistaan afar waab waxay yiraahdeen degmada reer hebel waxa horta in la burburiyo oo la yiraahdo Boosaaso dega qardha dega garowe dega gaalkacyo intaas meel kale lama degi karo waxa kale la baabiyo la burburiyo oo cagaf la galiyo si bal bulshada garowe oo kale waxa la 300 hadii waqooyi Hargeysa iyo Burco Boorame degan yihiin meel kale lama degana koonfurta Muqdisho Kismaayo Baydhabo la degan yahay Hargeysa iyo Burco Boorame degay 2 bilood ka hor hotelka aad tagto waxa isleedahay mashil baa ka dhacay dadka dadkan maxay yihiin waxa la dawaa meesha waa hotel waxa fadhiya meesha 400 300 qof ka cabiyeen aduu balada martisoor iyo garaan iyo tag iyo baabarooti waxa fadhiya afar qof oo laba meel fadhido oo dhaxan hayso waxay sameeyeen garan waay marka waxa sax maaha hal meel oo ilmu entertainment ku soo qaato oo si caadi ah oo dabaal leh ama hadii la koriyo dalxiis leh ama hadii male garow maanta haday leedahayna waa meel yar oo ciriira oo qalab yar ku xiran yahay oo laga yaabo in qaalina tahay marka caruuraha banaanka laga keenayo oo qurbo joogta ay keenayaan oo rabana keenona Hargeysa waa naga duwanta hoteelada kulli intooda badan waxay leeyihiin waastooyinka dabaashay leeyihiin meel caruur ku ciyaaraan bay leeyihiin waxay leeyihiin hadii la kor iskuulinkooda waa naga duwan yahay iskuulahana qaaday oo standard oo dhowr bay leeyihiin oo magacyo kala duwan oo manhaj caalami haysta runta marka laga hadlo iskuul inaga bedelan bay leeyihiin qodobka u dambeeyay uu ka hadlay waxay ahayd populationka anaga populationka dibka naga haysto ugu weyn waxa keenay reer walba wuxuu rabo inuu laamiga dego oo dhaho laamiga aan badegana taas waxay keentay magaalooyinka ay bataan magaalooyinka markay bataanna waxa yaraanaya magaalo sida hadda sheegaysa Mandela oo kale meel 350 ay ka adeeganayso meel xataa 10 ka adeeganayso ma helaysid sababta populationka aad u yaraaday anaga dad iska dhicin iyo wax noocaas anoo isaga jirnaan population exaggeration ku sameeynayo kor u qaadnaa laakiin wadanka population ma joogo markeeda horena ma joogin 2003 ga hadda uu sheegay xildhibaanka haddartaan population badan ma jiro marka arinta waqooyi inay maartay wadankooda aad u yimaadaan waa dawladooda ku dhiirigelisay runtii dawladda u sameysay airport marka hore ay nagu horeeyay airport caalami ah airportadaas waxay sahleen in dad badan ay dibadda ka laakiin Hargeysa iyo Xamar waxyaabaha nooga duway waxa waaye صراحة أنا وهالنا واي حاجة فنك أنا وكليدنا قرو إيو هرجي مركلو في الشو ماشي اللي هذا هرجيس إيو ميقدش سوغانت إيو فنك إيو مارتو حيابهاس entertainment تيجا هرجيس وحاهليسا قبر قوي كلية إنجليش كو قبيسو أنت صوب قولو قفيك سوق يبقليسو مال أنتي قبسته هول هل كان بوك فيركا وحا خصب لو كان عددك marka xagga entertainment aad ugu liidana dad maarta dhaqan ahaan artist-ka xagga artist-ka waligeed waa ku liidanay xagga wadaadadaas aan u leexiyo wadanka wuxuu ku leh dhaqaalaha ku haysta qabaa'ilkii iyo aanadan hadda uu sheegayo waa wax jira dadkii inay ka cararayaan wadanka dilalkan iyo maartay hubkan dagaaladan hadda laascaano iyo dagaalkan hadda meesha ka dhacay calmiskan dib uu noo keenay runtii dadkii baa sii hubaysmay qoryaal la furanaya qaniima lagu sheegaya qofkii qoryo haystaa qorigii
wuxuu ku qabta ma yaqaano waa inuu wax ku dilaa wuxuu wax ku maartay marka